wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo duulista hawada Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi ayaa sheegay in maalinta bariya magaalada Muqdisho lagu qaban doono xaflad lagu daahfurayo xarunta lagala socon doono maamulka hawada dalkaasi Soomaaliya. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in la rakibay dhammaan qalabkii lagu shaqayn lahaa isla markaasina la qoray shaqaalo fara badan oo ka shaqayn doona. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay inay la soo wareegto maamulka hawada dalka Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991 wixii ka dambeeyay ayaa hawada dalka Soomaaliya waxa laga maamulayay oo xarun u ahayd magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya, waxaana hadda gacanta ku haysay hay'ad loo yaqaano ECAWA, waxaana munaasabada ka soo qayb gali doona xaruntaasi laga maamulayo hawada dalka Soomaaliya madax iyo mas'uuliyiin kala duwan. qalabkani lagula socon doono maamulka hawada ayaa lagu rakibay xarunta hay'adda duulista iyo saadaasha hawada ee dalkaasi Soomaaliya iyadoo loo tababarayo inay ku shaqeeyaan qalabkani shaqaale u igman hawshaasi.